daawadayaal ku soo dhawaada saxaaba films channel oo markasta idiin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee Bollywoodka aktarada ka tirsan ee filimada ka sameeya ee dalkaasi Hindiya. daawadayaal barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa qaladaadka ay galaan jilayaasha ama directorada filimada sameeya. qaladaadkaasi waxaa lagu falanqeeyaa ama lagu taxliiliyaa markuu filimka soo baxo kadib ama filimka uu u tartamo biladaha caalamiga ah ama la yiraahdo filimkaasi waxa uu noqday filim blockbuster. waxaa lagu sameeyaa baaritaan ama cilmi baaris waxa uu ku qaatay filimkaas abaalmarinta ama uu mudnaanta ku helay. haddaba waxaanu soo qaadanaynaa filimaan ka tirsan filimada shirkadaha Bollywoodka ay sameeyaan oo ay jiraan aktarada Bollywoodka ka shaqeeya. filimada aynu soo qaadan doono waxa ay gaarayaan ilaa 5 filim, inkastoo qaladaadka filimaanta ku jira ay badan yihiin, balse ugu horreyn 5 filim ayaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa. daawadayaal filimka u horeeya oo aynu soo qaadanayna qaladkiisa waa filimka Dumlaga Ka Haisha. filimkaasi waxaa director ka ahaa Sharad Kataria, waxaana filimka producer ka ahaa oo maalgeliyay Mane Sharma iyo Aditya Chopra. waxaa filimka actor ka ahaa Ayushmann Khurrana iyo Bhumi Pednekar. filimkaasi waxa uu soo baxay sanadku markuu ahaa 2015 bishii Febraayo 27deedii. waxa uu soconayay 110 daqiiqo. waxaa lagu dhigay filimka sidaan hore baynu ku sheegnay dalka Hindiya. luqadda uu ku baxay filimkaasi waxay ahayd Hindi. waxaa filimkaasi lagu maalgeliyay 9 milyan oo rupees. waxaana ka soo baxday xagga box office 301 milyan oo rupees. haddaba taawada waxay tahay qaladka filimkaasi ku jiray jilaaga filimka ee actorka ka ahaa waxa uu ahaa Ayushmann Khurrana, waxaana filimkaasi loogu yeeray ama magaca loogu wacay waxa uu ahaa Prem. marka uu isaga iyo qoyskiisa ay israacayaan oo ay rabaan in ay aadaan atirishada Bhumi Pednekar oo iyadana filimkaasi loogu wacay magaca Sandiya gurigeeda, waxa uu Prem iyo qoyskiisa ay soo raacayaan ama ay kaxaysanayaan gaari basa oo buluug ah oo sida sawirka ba idinka muuqata gaarigaas ayay kaxaysanayaan isaga iyo qoyskiisa. waxa ayna u socdaan in ay dhaqaaqaan, balse markii gaariga guriga uu ka dhaqaaqo oo uu wadada ku soo jiro, haddana muuqaalka kale ee aad arkayso ayaa ku soo baxaya gaarigan iyo kii hore ay soo kaxaysteen Prem ama Ayushmann Khurrana ma isku mid ba mise waa indhahayga? adiga ayaa laga rabaa daawada in aad ka jawaabtid. haddii aad filimka daawatayna waa aad garan kartaa. filimka labaad ee aan barnaamijka ku soo qaadanayno waa filimka uu wada jilaaga caanka ah ee Akshay Kumar, waana filimka Baby. filimkaasi Baby waxaa director ka ahaa Naresh Pandey, waxaana producer ka ahaa Bhushan Kumar iyo walaalkiis Kirshan Kumar. filimka waxaa waday oo jilaaga ahaa san hore idinku sheegay Akshay Kumar, Dani iyo Rana Daggubati iyo Taapsee Pannu. filimkaasi waxa uu soo baxay 23 bishii January 2015 159 daqiiqo ayuu socday. jilayaasha wada waxay ka soo jeedaan reer Hindiya. luqadda lagu hadlayna waxay uu ahaa luqadda Hinduuga. filimkaasi waxaa lagu maalgeliyay 8.8 milyan US dollar, waxaana ka soo baxday 20 milyan oo dollar. haddaba su'aashu waxay tahay qaladka filimkaasi ku jiray Akshay Kumar maxaa uu sameeyay? qaab jilin sida ayuu keenay qaybta amaba xalqada filimkaasi ku jirta ee uu Akshay Kumar damcayo amaba inuu soo qabto uu bursado Wasim Khan marka la joogay dalka Nepal. waxa uu Akshay Kumar ka haystay gaari Land Cruiser oo noociisa qaabkan idin muuqda uu yahay, balse markii uu muddo badan asaga iyo Wasim Khan ay isirsadeen soo noqodkii isla xalqadii Akshay Kumar gaariga noocana ayuu ku soo noqday. ma isku mid baa labadan Land Cruiser mise waa ay kala gedisan yihiin? daawadayaal idinkana waa la idinka rabaa haddii aad filimka daawateen, haddii kalena waaba aragtaan. filimka saddexaad ee aynu ku soo qaadanayno waa filimka magaciisa la yiraahdo Oh My God OMG. filimkaasi waxaa director-ka ahaa director-ka caanka ah ee Umesh Shukla, waxaa producer-ka ahaa filimkaasi Akshay Kumar, waxaana filimka jilaaga ka ahaa Akshay Kumar iyo Mithun Chakraborty iyo Paresh Rawal. filimkaasi
waxaa lagu kharash gareeyay lacag gaaray filinkaasi waxa uu soo baxay 18 September 2012 lacagta la geliyay waxa ay ahayd 3 milyan oo dollar 7 milyan oo dollarna waa ka soo baxday ha yeeshee filinkaasi qaladka ku jiray waxa uu ahaa oo aan rabno daawadayaal inaan idin la wadaagno haddii aad fiirisid qaybta filinkaasi oh my god qaybta wararka amaba TV-ga wararka sii deynayay waxa uu ahaa TV-ga caanka ah ee dalkaasi laga yaqaano APP balse markiisa hore waxa uu ahaa Star TV oo magaca loo bedelay waxaad arkaysaa sida muuqaalkaba idinka muuqata warka waxa uu ka baxayaa APP TV balse gabadha wariyaha ah ee warka soo tabinaysa waxa ay sidataa Star TV microphone ay loogadiisu saaran tahay muuqaalka TV-ga ka baxayana waa APP News haddaba su'aasha meesha taala waxay tahay oo dib markii filimkaasi loo daawaday soo baxday in APP TV-ga la yiraahdo iyo mikrofoonada uu isticmaalay Star News ee magaca hore uu ka soo guuray ma sidaas ayay u isticmaalaan mise filim sameeyayaasha ayaa qaldamay waa su'aal meesha ku jirtay oo dacwada badan kadib arintaasi la qabtay daawada inta sayaan kaga gudbayaa filimkaasi filimka afaraad ee aan soo qaadanayno waxa uu yahay filimka Badlapur filimkaasi waxaa director ka ahaa Sari Ram Raghavan waxaa filimkaasi actor ka ahaa Varun Dhawan iyo Nawazuddin Siddiqui filimkaasi iyo atirshada caanka ee Huma Qureshi waxa uu soo baxay 20 Febraayo 2015 waxa uu soconay 128 daqiiqo dalka Hindiya ayaa lagu dhigay filimkaasi luqadda uu ku baxana waxay ahayd luqadda Hindiga waxaa lagu kharash gareeyay 250 milyan oo rupees 770 milyan oo rupeesna waa ay ka soo baxday haddaba qaybta qaladaadka uu ku jiro waxa ay ahayd qaybta loo bixiyay Alliance Musicianadii Alliance-ka amaba gos ama marka aakhiraadka haddaba sababtu waxa ay tahay atooraha filimka ee Varun Dhawan waxa uu ku raad joogaa in uu ka aarsado cidii u geysatay dilka xaaskiisa iyo cunugiisa yara haddaba raadinta uu raadinayay ninka filimka la waday ee Vinay Patel oo magaca Harmaan loogu yeeray markii ay ku ballameen in uu ugu yimaado maqaaxidii asaga uu lahaa waxa uu Varun Dhawan fariistay maqaaxida kuraasta qayb ka mid ah sida sawirka idinka muuqata garabkiisa midig waxa ka muuqata in ay taagan yihiin niman ka taarad amaba kaban haysta oo garaacanaya balse markii dambe ee booliska ay soo noqdeen oo dib loo fiirinayay kaamirada CCTV waad aragtaan waxa muuqaalka kaaga muuqda in jilaaga filimka Varun Dhawan uu kursiga ku fadhiyo dhankiisa bidixna waxa kaaga muuqata circle wareega waana goobtii ay taagnaayeen nimanka music-ga garaacayay haddaba ma CCTV-da ayaa qaldan oo mid kale ayaa dib loo sameeyay mise nimankii meesha taagnaaba marka hore ee inoo muuqday annaga qaybta horaan filimka daawanaynay waxay ahaayeen Alliance ama baarre aakhira su'aashaasi waxaa loo diray directorka filimka sameeyay idinka daawadayaasha ana waa ay idin taalaa haddaad hore u ogeydeen waaba macquul gal haddiinan ogeyna bal hadda dib haw daawada filimka ugu dambeeya ee aan barnaamijka ku soo qaadanayno waa filimka caanka ee u dhigay jilaaga caanka ee Mithun Chakraborty filimkaasi waxaa la yiraahdaa magaciisa waa filimka Gunda waxa uu soo baxay sanadka 1998 haddaba waxa uu filimkani qaatay qalad filim lagu sameeyo oo ka tirsan shirkadda Bollywood-ka ama wadalkaasi ka raalaha Bollywood-ka oo filimada shirkadaha filimada sameeyay ee dalkaasi Hindiya filimkii ugu yaabka badnaa ama ugu mucjisada badnaa Mithun Chakraborty waxa uu ku jiraa qaab dagaaleed ama xaalad dagaal weerar culus ayaa ku jira bistoolad ayuu gacanta ku haystaa waana uu gabaday oo xabadaha ayuu ka gabaday xageesa uu ku gabaday sawirka idin muuqda ee idin soo baxaya waa Mithun oo ku gabaday baaskiil labadiisa lugood dhexdooda meesha pateelaha ayuu bistoolad ka soo riday haddaba waxay tahay su'aasha la isweydiiyay Mithun baaskiilka meesha uu xabada ka soo riday oo ku gabaday haddii xabad kale lagu soo rido miyay ka celinaysaa mise dadka caqligooda ayuu rabaa inuu ku ciyaaro daawadayaal barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa hamoogaanina subscribe inaad tirahdaan saxafi filim Saudi soo gudbisa markasta dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee ka dhaca dalkaasi Hindiya gaar ahaan shirkadda Bollywood-ka iyo actariinta filimada ka sameeya fikirkiinana waxaad inoogu reebi kartaan qaybta comments-ka ee isla saxafi films inagoo isku duuban oo abaada saxafi filmsna waxaanu idinkaga tageynaa inta